السلام عليكم magacayga waa maxaa dhiga daawanaysan yaama youtube maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan vlog jamca waxa kale oo idin kaga sheekeynaa sidii aan ku bartay luqadda Swedish-ka ayaan idin kaga sheekeynaa iyo wadooyinkii aan maray iyo waxyaabihii iga caawiyay inaan luqadan barto ha iloobin wax walba waa inay adayga ka go'aan kadib ayaa baran karta haddayna adiga ka go'onin ma baran kartid wax walba aad samaysid 100 sano hadaa baranaysid xitaa haddii adiga rabitaan xaggaaga jirin ma baran kartid haddii aad weli kanaalkayga subscribe saar waxa ku leeyahay subscribe leh daawasho wacan أنا كذا شيء كان هذا سيدي أكو برت اللغة وطن كسويدن أفكار اللي هذا في سويدش كا سيدي أكو برت أفكار سويدش كا أفكار وطن كان جوديس مركل لقى الله سويدش أنا كان هنا أما وطن ما ضدك كلام حلا ضدك سويدش كا لك وطن كان ضدك دقيقة حنا سانسكا لها أما سانسكا سبروك اللغة سويدش كا سيدي أكو برت أمريكا كو أي ماد وطن كانت هورت السكولة تجسا وقف البوينها مقف عرورها سكولة تجسا كل مركل الوجود درو حيمانة سمركا سيتو كل كواس قاعد كرتا لكن هدي هذا الربيتان هذا هي سنين اللغة ما برنيس صح لكن أنا وحيابي يجعبي هذا كي شيء كنا وحيابي يجعبي وحكم ده كل مركا معلم والبو كعابنا مفات لكن وين هذيك سميستا وح ما وح كبحث معلم كعابنا دوك سمينا وح كبحث وين برتا أو محل هذه على ماذا سي waxaan luqadda inaa baratid ku fuudeeyo koo aan waxa aqri jiray buugaagta caruurta ma fahanto loogu talagalay caruurta iyo buugaagta maqalka caruurta loogu talagalay buugaagta hadaadan garanaynin waxa sid loo kala saaro buugaagta waliba waxa aqri jiray buugaagta oo maarkino sawirada iyo maxaa la dhahaa ii sheekay sawirada iyo hadalka isla socda oo sawirka iyo hadalka isla socda soo fahanted buugaanad wuxuu ka hadlaayo iyo sheekada buug ku taala waxa ay ka sheekeynayso waxa kale oo aqri jiray jaraa'id kulli waxa aqri jiray jaraa'idka subaxii soo baxo maarkino trainka marka saaran tayaalo trainka basaska uu saaran yahay wadooyinka qaarkood meelaha ayuu yaala waa ka qaadan kartaa jaraa'idkaasna akhri jiray jaraa'idka muxuu ka caawinayaa inaa fahantid waxa magaalada aad degantaa ka dhacayo iyo siyaasadda wadankan meesha u socotay in aad fahantid wadankan meesha u socday meesha ka socdo waxa kale oo dhageysan jiray buugaagta codka iyo podcastyada afka Swedish-ka way kala duwan yihiin podcasty waxa jira looga sheekeeyo dambiyada oo dhaceen oo kale iyo podcasty waxa dhageysan jiray taariikhda podcasty waxa dhageysan jiray saaki idaacadii dhafto oo kale taa ka gaaro inaad dib u dhageysto kale saddexdaas shay ayaa adiga isticmaali jiray laakiin saddexdaas shay haddii adiga aadan rabitaan aadan haysanin ma ku caawinaysa brother rabitaan waa inaa haysataa kugu celinaya buugaagta caruurta loogu talagalay jaraa'idada iyo maqalku aad dhageysan jiray podcastyada podcast waa soo degsan kartaa ma u baahnid xitaa iPhone-ka daas waxa jira app lahaay podcast waxa raadinaysaa oo kaliya podcast-ga aad rabto inaad dhageysato hadduu dhaqan yahay culture hadduu yahay ama luqad hadduu yahay wuxuu yahay inaad raadsatid kadibna aad dhageysid waa taas oo kaliya waxa kale oo sameyn jira waxay tahay inaad dadka maarkino Soomaalida ahayn ama dadka isku afka hooyo aan ahayn inaad la sheekaysto meel waxa tagi jira oo maxaa lagu qaxweeyo dadka dhalinyarada wadanka ku cusub ama dadka wadanka ku cusub oo dhan isku yimaadaan oo activity meeshaas waxa ka baran jiray dadka ay la hadli jiray ayagana way la hadlayaan ana waa la hadlayaa يعني dadka isku level kana luqada ay la hadlaysaa dad waxa jiro Swedish oo meesha joogo oo kula sheekaysanaayo yani luqada ka saxay grammarka ka saxayo waxyaaba iskuulka lagaaga soo diro markano su'aalaha waxyaaba lagu soo diro adiga homework-da iskuulka lagaaga soo diro ka caawinayo oo ku wixii ka la shaqeynaayo ma fahantay soo marka meeshaasna waa tagi jiray dadkana waa dhaxgali jiray mana ka xisho jirin ina afka Swedish-ka ku hadlo waayo haddii aad ka xishotid weliga Allah kuma hadlaysid laakiin ma ka xisho jirin yani si qalad ah u dhawaaqo iyo si sax ah uga dhawaaqo wax ma iga gali jirin yani taas shaqadii ma ahayn waa tuuri jirin faantay alxamdulillah gadaal waa ka hagaago yani luqad si fiican oo bartay naxwayi waa si fiican oo bartay ilaa heer dugsi sare oo luqada ka gaarin faantay alxamdulillah maanta walka wadanka iimaanaya maanta wax badan ayaa islaama wax badan farq weyn ayaa islaama xitaa saw dhawaaqayo yani in dadku ku dhaan xitaa meeshaan ma ku dhalatay lahjadaad bay ka duwan tahay meesha degantaa gobolkaas waa ka imaaday yani xitaa luqada lahjada yeelanaysa Soomaali hadda markaa ka imaanayso waxa laga yaabaa inaad isdhehin lahjad ma lihi laakiin markaa meeshaan timaadid lahjad ayaa yeelanaysa luqada ayaa baranaysa lahjadii wadanka ama deegaanka aad degantahay ogsoontii wadankan lahjada kala duwan ayuu leeyahay dadka waqooyiga wadanka degan si kale ay ugu dhawaaqaan dadka maxalla hoos degan maxalla maalmo iyo magaalooyinkaasna lahjad kale ay leeyihiin laakiin meel walba degantahay lahjada leedahay Soomaaliya sida kala duwan tahay qofka baa ka yimaada maxaa la dhahaa Galbahaare iyo qofka ka yimaada maxaa la dhahaa Saylac isku lahjad maaha iyo qofka ka yimaada Shabeellada dhexe isku lahjad maaha sidaas oo kale wadanka walbana lahjad ayuu leeyahay soo marka wadanka aad luqadda aad baranaysid meesha aad degantahay lahjadeeda ayaa qaadanaysa adiga kala ogow hadaa Soomaali iskuul ku soo dhigatay hadaadan iskuul ku soo dhigin saameyn ayay kugu yeelanaysaa xitaa hadaadan xala weliga Allah waxaad qorin saameyn ayay kugu yeelanaysaa waayo marka wadanka timaadid waa luqad cusub hadii ko baranaysid qoraalkeeda sida loo qoro laakiin Soomaali hadaa dugsiga sare uga soo baxday yani luqad kale xitaa adan aqoon Soomaaliga garanaysid af maxalla af Arabi af English na iska jabsanaysid way ku fududaanaysaa mar walba hadii mar walba
waliba wax qori kartid waxna akhri kartid ku fududaanaysa inaad luqad waliba aad baratid laakiin haddii aadan weliga alaab waxba qorin waxna aadan qori karin kuga adkaanaysa yani waayo waa wax kugu cusub haddii kow aad bilaabaysa ma fahantay meeshaane wadamadan caalamka wadamadan Soomaaliya marka laga soo tagana wadankan oo kaliya maahan wadamada kale marka tagto waa isku mid haddii aadan waxna qori karin waxna akhri karin dib ay kugu noqonaysaa inaad shaqo heshid waayo shaqooyinka qaar waxaa laga yaabaa inaad document lagaa rabo inaad qortid inaad robot gudbis lagaa rabo yani qalad ay kugu adkaanaysaa inaad heshid shaqo haddii aadan waxna qori karin waxna akhri karin هذا كله يا لقانا دعين ودن كان لقدي سما البركة ساموا وياك تاهيد وديت يعني وحاسيتو يا لقانا دعين برادا وحول بحدي أقوان كذا خادتي أقول طلقش وحن إنا برتيت وبرنيسا إنما كهور استاكرتid wax kaliya oo baahan tahay waxay tahay adiga go'aankeeda ma qaadan karta oo waxaan diyaar mu tahay inaad barato macalinku caawiyo waa helaysaa dadka caawiyo iskuulka ka baxsan waa helaysaa laakiin adiga ma ka go'an tahay inaad luqadan aad baratid waa intaas oo kaliya ana marka wadanka dhimaanay waxa la fadhiistay dad 2012 2009 wadankan yimid waa iga weyn marka maanta waxa lagu jiraa 2023 Soomaaliya ila abtunaa kuuli aadan والله بينكم بشيء اسكول هذا ولي لقدة ديجنا وايو كمان قلنا ده لقدة إني برتان كمان قلنا لكن هدي هذيك قعدت طيب برادا 2 years هذا لقدة كبرويس وحاودد وعيار لا مثلا هدا كبرويس ومضن كأتمد لقدة يسا وحاودد وعيار كله جونين اسكشختك برادا اسكشختك هاي سلوك جونين تاسع يقتله أكو شغو أنا كما هدلاي قف كوين سنة إلى 20 سنة كما هدلاي قف صدون سنة كوين كما هدلاي صدون سنة هدا كوين تاي level kala tahay laakiin 30 sano hadaa ka yartahay oo 2 sano ay kugu qaadato luqadda inaad ku baraweysid waxa wadid waa ciyaar qadarti ilaahayna way dhacdaa yani dad oo hadalka u soo degdego dad qoraalka u soo degdego dad maqalkooda u fiican yahay luqadda fahmaayo laakiin aan ku hadli karin aan qori karin dad waa dhacdaa maxaa la dhahaa oo hadli kara si fiican u hadli kara laakiin qori karin oo qoraalka yani 3 sadar 4 sadar aad dhaafin karin way dhacdaa ma fahanto taasna ugu dadka qaarkood hadalka ayaa u soo degdega oo yani inay luqadda ku hadlaan dadka qaarkood inay maqlaan dadka qaarkood inay wax badan qoraan laakiin inuu ku hadli karin hadalka ka xishoonayaan laakiin beejaj oo qorayaan taasna ugu waxa rajaynayaa inaan wax badan aad ka fahamtay sida luqadda aad ku bartay iyo wadooyinka aad maray haddii aad wali kanaalkayga subscribe saar waxa ku leeyahay subscribe dheh adigase ma haysaa wada kaleeto oo yani dadku u fududeynaysa inay luqadda bartaan inta muuqaalka muuqaalamada isku arki doon waxaad leeyahay nabadgelyo